شعبي الصوماليلان meel kastoo ay joogaan iyo taageerayaasha xisbiga wadani walaalayaal sooyaal dheer bay soo gashay Somaliland halka ay maanta joogtay soo gaadho ay nabadda dhisato ay dimuqraadiyadda dhisato ay nidaamka doorashooyinka xorta ah hirgeliso waxa shacbiga Somaliland ka warhayay dhegtana u taagay kulankii 24 bisha ay hoggaanka axsaabta mucaaradka ah kula kulmeen Muuse Biixi kulankaas oo natiijadiisa ay shacbiga la wadaageen markii aanu ka soo baxnay labada gudoomiye labada xisbi mucaarad Faisal Ali Hussein iyo Xirsi Ali Xaaji Xasan kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday safgarad la'aan iyo natiijo la'aan axsaabta mucaaradka ah niyad wanaag bay la tageen waxayna qodobada ugu muhiimsan ay kala hadlayeen Muuse waxa ka mid ahaa in heshiis laga gaaro iyo safgarad ama qorshaha doorashada ama road mapka madaxtooyada doorashada qorshaysan 13 November in komishanka qaranka oo xudun u ah qabashada doorashooyinka faragelinta laga daayo lana buuxiyo xubnaha ka dhiman baarista iyo gudiyada laga joojiyo diiwaangelinta la bilaabo agaasimaha guud in la xayeysiiyo lagana bedelo xubinta shaqaalaha madaxtooyada ah ee uu soo magacaabay isagu si loo ilaaliyo madax bannaanida komishanka doorashooyinka qaranka kulanka waxa nooga soo baxay midabkii dhabta ahaa ee Muuse Biixi wala ilaahay mahadi in midabkiisa dhabta ay soo baxo iyadoo muddadii doorashada madaxtooyada 13 November muddo badan ka hadhay waxaan u tagnay madaxweyne odaytinimadii dhaqankii la jeclo dastuurkii iyo shuruucdii dalka intiiba meel iska dhigay rabana una muuqato inuu helo maalmo xaaraan ah oo xukunka ku sii waaro taasina ma suurtagelayso axsaabta qaranku waxay u tageen madaxtooyada in muranka doorashada muranada sharci iyo siyaasadeed la soo afjaro doodo dhaadheer kadib kulankaas waxaan kala soo noqonay hungo iyo gacmo maran Muuse wuxuu ekaa in awoodii qaranka dastuurkii iyo shuruucda dalka tunka ku qaatay albaabkii doorashooyinka iyo wada hadalkana qofulkii ugu weynaa ku dhuftay mana jirto sabab axsaabtu ugu noqnoqoto haddii aan mowqifkiisa waxba iska bedelin waxaa noo muuqatay in Muuse nasakhay xididadana u siibay dastuurkii iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka waxa uu leeyahay sidii aan doono baan ka yeelayaa doorashooyinka tii aan doono baan soo hormarinayaa tii aan doonana dib baan u dhigayaa anigoo eegin dastuur jideeyay ama xeer jideeyay waxa uu leeyahay axsaabta qaranka waan baabiinaya muddada jiritaankooda
sharciga ahna ee 10 sano ahna waan soo yaraynaya waxay noqonayaan ururo taas oo aan sharcina ahayn suurtagal ahayn awoodna aanu lahayn waxa uu leeyahay waxaan soo hormarinayaa doorashada ururada iyo axsaabta aan xeerkoodii wali la samayn annana waxaan leenahay oo aanu ku celcelinaynaa ma jirto doorasho ka horeyn karta ta madaxtooyada ee 13 November 2022 axsaabta mucaaradka ah waxay soo jeediyeen san xagga horena ku soo sheegay in commissionka la daayo si doorashadu u qabsanto shaqadooda loo fasaxo diiwaangelinta loo fasaxo agaasimaha guud laga bedelo waxaan kaloo ku celinaynaa gudiyadaas gudiga baadhista u saaray waa gudi xisbiyeysan oo xisbi kaliya ah mana aha gudi dhexdhexaad ah hanti dhowrka guud ee dhowr jeer la sheegay inuu commissionka tagay ama baadhay xaq uu leeyahay inuu baadho laakiin October sanadkii hore ayuu hanti dhowrku baadhay commissionka bil lama 2 bilood kadibna wuu soo celiyay baadhistii waanu fasaxay waxaanu fasaxay dhamaan xisaabihii wuxuu fasaxay in shaqadooda qabtaan taasoo calaamad ahayd inaan waxba lagu helin waa nasiib darro ah in maalintii isbedelka ay sameeyeen ay gudoomiyaha bedeleen in auditkii fasaxay oo waraaqii dib u qaatay auditkana waxaan leenahay hadaad markii hore fasaxday waxa cusub aad ku ilowday meesha maxay ahaayeen hawsha riboodka uu soo qorayna waxaanu leenahay iska hubso Muuse wuxuu leeyahay waa kororsanaya annaguna waxaan leenahay xaq uma lihid inaad kororsato waa inaad doorashadii qabata haddii ay doorashadu 13 November qabsoomin weydana kuma aqoonsanin madaxweyne waxaad aragtaan madaxweynaha iyo wasiirkiisa daaqiliga iyo wasiirada kaleba iyagoo ku celcelinaya doorashada ta soo horeynaysa waqtiyada doorashada iyagoo kala sheegaya waxay og tahay in Muuse iyo wasiiradiisii inqilaabeen commissionkii shaqadii commissionkana iyagu hayaan ma isu eeg yihiin ayaamu gaariga wuxuu yidhi haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaya arag ilayn wax ma dhaantid geed sanadadii qaraadha ee kulmiye iyo maanta ma isu eeg yihiin waxa nasiib darro ah in jidkii qodxaha badnaa ee Muuse soo maray maantana uu taagan yahay insha Allah iyadoo tiisii ka fudud ayaynu ka gudbi doonaa Somaliland waxay mudnayd inay hesho dawladnimo inoo rumaysa riyooyinkii iyo hiigsigii naruurada iyo nimcadu ka buuxday Somaliland waxay mudan tahay dawladnimo iyo xukun meerta ah oo la wada leeyahay loo wada siman yahay in wada deeqa oo la isku faquuqin Somaliland ma mudna in qof kaliya ka dhigto shaar uu isagu tasho way ka weyn tahay Somaliland mana mudna inaan ogolaano inaynu qaadno jidkii dictatorkii halganka dheer lala galay aniga xisbigayga iyo shakhsi ahaantaydaba waxaan u taaganahay wada jirka midnimada wax wada lahaanshaha iyo horumarka Somaliland dad iyo dalba
mana ihi nin raba inuu kursiga ku fuulo tartan la'aan iyo jujuub waxaan si ahay nin sanduuqii tartanka doorashada loo diidan yahay oo le waraan tartanee sanduuqii noo dhig waa kii lahaan cagaa boodhka wada gelinaya xitaa in boodhkii cagaa la wada geliyo ma ogola gacmaha waxaan leeyahay maadaama uu yidhi axsaabtiina ma baabiinaya sanduuqna dhigi maayo ninkuu yidhi sinaan mayno isna diid sarrayntiisa waxaan in badan ka dignay in laga hor tago marxaladdan aan maanta soo gaadhnay ama marayno axsaabta mucaaridka ahi golayaasha qaranka waraaq bay u qoreen muddo dheer ka hor oo ay xaaladdan kaga digayeen soo socota ee maanta timi walaalayaal waxa ay soo dhaaftay xilligii indhaha laga qarsanayay godka madow ee muuse Soomaaliland ku ridayo waxa lagama maarmaan ah in nabadda iyo wada jirka iyo wada lahaanshaha la difaaco waxa lagama maarmaan ah in la difaaco dawladnimada inaga dhaxaysa ee aynu wada lahayn muuse ka hor muuse kadibna aynu wada yeelan doono waxay nagu waajibaa inaan Soomaaliland ka difaacno kaligii taliya damacsan inuu xoog ku haysto kuna xukumo dalka waxay nagu waajibaa inaan ka hor tagno doonista guracan uu muuse doonayo inuu kursiga kaga dhigto boqortooyo walaalayaal ummadaha marka ay samaysto diktatoriyadu ama bilowga diktatoriyada ee dal kasta wuxuu horseedaa burburka ummadda waxaan xusayaa in xubnihii shalay la dhaariyay ee gudida ururada axsaabta iyo ururada aanay sharciyadoodu dhammaystirayn sida sharciga ku qoran sida garyaqaano madax bannaan ilaa shalayto ay sheegayeen oo meel kasta kala jooga marka gudigu waxay ku dhammaystirmayaan marka soo dhammaystirmo waxaanay hawshooda bilaabayaan marka ay soo dhammaystirmaan waxaan ugu baaqaynaa baaqa koowaad laba baaq baan halkan ka soo jeediyo baaqa koowaad shacbiga Soomaaliland ma soo jeedinaya waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee shacabka gudo iyo dibad aqoon-yahan madax dhaqameed ganacsatada haweenka dhalinyarada saxaafadda iyo qof kasta oo xilkas ah in meel looga soo wada jeesto badbaadinta nabadda wada jirka wax wada la'aanshaha qoriisu dhiibka talada iyo sidii loo heli lahaa Soomaaliland aynu wada difaacno aynu wada leenahay kuna soo celino xukuumadda jidkii doorashada ugu dambayn baaqayga labaad waxaan ka horeysiinayaa hadal almaani dhawid dhalinyarada anoo la hadlayaan ku yidhi dhalinyarada uguma maaqin inay hub soo qaataan ana hub ma sito madaxda xisbiguna hub ma sidato dhalinyaradana uguma maaqin inay hub soo qaataan laakiin waxaan ugu baaqnay in marka waxay xaq u leeyihiin ay fulinayaan ee dastuurku siiyay in haddii ciidanku si xaq darro ama sharci darro uu rasaas ugu furo ay isu dhigaan maantana waxaan leeyahay isu dhiga dhammaan shacbiga Soomaaliland waana nagu qori ma sidano ka soo riyadaynu eegi doonaa kaasina dambi buu la kulmi doonaa ku rida qof aan rasaas sidan oo hub sidan maalin baa la xukumi doonaa oo la qisaasi doonaa waxa dambi geystay
walaalayaal baaqaan u jeedinayo taageerayaasha iyo cidda jecel nabadda iyo sharciyadda iyo doorashooyinka iyo nabadgelyada Somaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani markay joogaan annagoo u marayna dariiqa sharciga ah si loogu soo dabaalo looguna soo celiyo Muuse iyo xukuumaddiisa dariiqii doorashooyinka ee uu ka leexday loona qabto doorashadii madaxtooyada 13 November waxaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo dhammaan shacbiga Somaliland intooda nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan inay muujiyaan dareenkooda annagoo u mari doona dariiqa dastuurka jamhuuriyadda Somaliland siiyay muwaadiniinta si Muuse iyo xukuumaddiisa sharciga loogu soo dabaalo u diyaar garoobaan shacbiga iyo taageerayaashu